ku soo dhawow shabakada sirta media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa galabnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 3 bisha abriil sanada 2020ka ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada sirta media wariye Haarun Macruuf oo u shaqeeya idaacadda VOA-da si gaar ahna u qaabilsan barnaamijka galka baarista oo alaaba lagu lafaguro weerarada xagjirka eedaha musuqmaasuqa dowladda federaalka iyo guud ahaan siyaasadda Soomaaliya Haarun Macruuf intuu ku guda jiray barnaamijka galka baarista wuxuu ogaaday xiriirka qarsoon ee ka dhaxeeya al-shabaab madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Qatar goorta uu bilowday iyo sidoo uu bilowday wariye Haarun Macruuf wuxuu xiriir la sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA maadaama xogaha uu helay ay si toos ah u khuseeyaan labadaasi mas'uul wuxuu qadka taleefanka ku helay agaasima Fahad Yaasiin wuxuu u gudbiyay xogta uu helay arrintaas oo filan waa ku noqotay agaasima Fahad Yaasiin wuxuu dalbaday in xogtaan aan la baahinin taa beddelkeedana laga iibsado dood dheer kadib waa la isku fahmi waayay wariye Haarun Macruuf wuxuu sii qorsheystay inuu sii dhameystiro xogaha ugu dhiman sidii uu hal mar u soo saari lahaa barnaamijka galka baarista oo uga hadli doona xiriirka al-shabaab madaxda dowladda federaalka iyo weliba dowladda Qatar NISA oo ka xun madax adeega wariye Haarun Macruuf waxay barteeda Twitterka ku soo qortay in ay talaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonto arrintaas ayaa banaanka keentay in madaxda dowladda federaalka iyo al-shabaab inay awaamiirta ka qaataan dowladda Qatar oo iyada maalgashatay labadaas koox ee maafiyada ah dhanka kale xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay hadalkii dhawaan ka soo yeeray NISA taasoo loogu hanjabay wariye Haarun Macruuf laguna tilmaamay inuu wariyaha yahay mid khatar ku ah amniga qaranka hadallada xildhibaan Fiqi uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa u qornaa sidatan warka NISA hanjabaad looga hortagayo barnaamijyada qiimaha leh ee amniga la xiriira ee wariye sare Haarun Macruuf oo isku soo dawirido iyo wararka degdegta ah ee laga helo bogagga baraha bulshada uu wariyahaasi ku leeyahay haddii taasi la isku eedeynayo ee amniga qaranka halis ku tahay sidee laga yeelayaa habdhaqankii iyo muuqaalada YouTube-ka ku jira oo wariyaha TV-ga Al Jazeera u shaqayn jiray uu ka soo duubay safka hore ee dagaalka sanadihii 2009-2012 asagoo wareysanaya amiirada al-shabaab oo soo bandhigaya gaadiid ay ka qabsadeen dowladdii askar ay dileen cidna aqbali mayso waana wax sharciga dalka ka soo horjeeda in awoodda dowladda loo adeegsado dad mihnadooda si xirfadaysan u gudanaya fariinta hanjabaadda ah ee hawada loo mariyay wariye Haarun Macruuf iga lama duwana tii xildhibaano howl dastuuri gudanaya lagu tilmaamay qaran dumis sanadii 2017 qaran dumis iyo amniga qaranka ayuu halis ku yahay waa isku hal kalimo oo siyaabo kala duwan loogu dhawaaqay waana hubka keligii taliska ku argagixiyo isla markaana ugu cagajugleeyo dadka aan la dhacsanayn aragtidooda dhanka kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad Cumar ayaa si ilbaxnimo ku jirta uga hadlay hanjabaadii ka timid sirdoonka Soomaaliya taasoo loo jeediyay wariye Haarun Macruuf hadallada wasiirkii hore ayaa u qornaa sidatan ma ogi waxa ay NISA sheegtay inay iyadu ka ogtahay Haarun Macruuf mana sahashan kara eedayn ku saabsan khatar ka dhana amniga qaranka haddana ma jeclaysanin fariinta ay NISA soo jeedisay goobta ay ku soo bandhigtay iyo qaanada ay dhigtay hay'adda dowladnimada Soomaaliya labada eedeymood oo ay NISA u jeedisay wariyaha ayaa ah falal ka baxsan anshaxa saxaafadda iyo xiriir khatar ku ah amniga qaranka anshax marin saxaafadeed sirdoon shaqo kuma lahan haddiise ay hesho xog faldambiyad ka dhana amniga qaranka waa shaqada hay'adda sirdoonka qaranka markaasi talaabada la gudboon waa in ay wargeliso booliiska baaritaanna uu sameeyo kadibna xeer ilaalinta ay kiis ku soo oogtay cidda dembiga lagu tuhmayo maxkamad la wada aado cadeymaha eedeynta iyo difaaca eedeysanaha doodiisa isu miisaama garsoore sharciga u shaqeeyo dal dimuqraadiyad ah oo sharci iyo kala dambeyn leh hay'adiisa sirdoonka wariyaasha uguma hanjabta baraha bulshada sirdoonkana hay'adiisa dalka xog xasaasi ah uguma gudbiyo saxaafadda bulshada ma jeclaysanahay inaan arrimaha hay'adeena sirdoonka qaranka uga hadla saxaafadda bulshada laakiin iyada ayaa doodaasi keentay isla goobtan su'aasha dowladda federaalka u taala waxay tahay haddii hay'adda sirdoonka qaranka dowladda ay ka adeejisay inay u cagajuglayso wariye jooga Washington oo aadna nooga fog una shaqeeya idaacad ay leedahay dowladda Mareykanka waa maxay damaanada iyo xorriyadda ay sheegi karto inay haystaan wariyaasha dalka gudihiisa jooga sidaas waxaa yiri wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Yuusuf Garaad Cumar dhanka kale laba qof ayaa xalay siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo dhinaca kalena aan wax war ah ka soo saarin maamulka Jubbaland labada qof ee la dilay ayaa kala ahaa haweeney xaamile ahayd iyo wiil 15 jir ah kuwa oo ay dilkooda geystay Maleeshiya huwaysan haweeneyda ayaa waxaa lagu dilay halka loo yaqaan Derisoonka Leegada Maleeshiyadaas ayaana goobta isaga baxsatay sidoo kale wiilka ayaa waxaa lagu dilay agagaarka xarunta shirkadda isgaarsiinta Olympic ee xaafadda Farjano kuwii wax dilay ayaa sidoo kale cagaha wax ka dayay dadka reer Kismaayo ayaa ku sheegaya in dilka labadaasi qof ay la xiriiraan dagaal beeleedyada maalmihii la soo dhaafay ka soconaya duleedka magaalada Kismaayo labada qof ee xalay lagu dilay magaalada Kismaayo ayaa ka soo jeeda mid kamid ah beelaha ku dagaalamaya duleedka magaaladaasi saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo ayaan weli ka hadlin dilalka aanooyinka beelaha la xiriira ee markii ugu horeysay in muddo ahba laga soo wariyay xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa ay haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkeeni hore dib u dhageysa ayagoo rogaal celisa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in ay talaabada ku habboon ee sharciga ah ay ka qaadayso wariye Haarun Macruuf oo kamid ah wariyaasha ka howlgala laanta afka Soomaaliga ee VOA qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka NISA
ayay ku sheegtay in Haaruun Macruuf uu leeyahay xiriiro khatar ku ah amniga qaranka kuna kacay falalka baxsan anshaxa warbaahinta sida lagu sheegay qoraalka. Qoraalka ayaa intaasi ku daray, waxaan hay-adaha dalka la wadaagaynaa in ay ka feejignaadaan xiriirkiisa soona wargeliyaan laamaha amniga qaranka. NISA waxay tallaabada sharciga ah ee ku habboon ka qaadaysaa Haaruun Macruuf oo leh xiriiro khatar ku ah amniga qaranka kuna kacay falalka baxsan anshaxa warbaahinta. Waxaan hay-adaha dalka la wadaagaynaa in ay ka feejignaadaan xiriirkiisa soona wargeliyaan laamaha amniga qaranka. Qoraalka NISA ma bixinin wax faahfaahin oo ku saabsan xiriirada lagu eedeeyay Haaruun Macruuf iyo waxa ay yihiin. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu caan ku yahay inta badan inuu ka waramo arrimaha amniga gaar ahaan kooxda Al-Shabaab iyo weerarada ay fuliso, isagoo qoray buug si gaar ah uga hadlaya kooxda Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale leeyahay barnaamij sameeya baaritaanada oo lagu magacaabo galka baarista, kaas oo marar badan baahiyo banaankana soo dhigay xogo ka qarsoonaa shacabka oo qaarkood ku saabsan musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda iyo gaabsiga dhanka amniga ah oo ka muuqda hay-adaha amniga dowladda. Haaruun Macruuf weli kama jawaabin warka xalay ka soo baxay NISA, hase yeeshee waxaa cad in arrintaani aysan ka marnaan doonin VOA-da oo uu ka shaqeeyo maadaama ay tahay hay-ad ay leedahay dowladda federaalka Mareykanka. Dhanka kale, warar ay heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaya in gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna Maye uu xabsi guri ku yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Gudoomiyaha oo si khasab ah loogu reebay ka mid noqoshada baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa kal hore waxaa diyaarad lagu geeyay magaalada Baydhabo, waxaana amar lagu siiyay in uusan warbaahinta la hadli karin isla markaana uusan soo gudbin karin wax cabasho ah. Sidoo kale warbaahinta Baydhabo ayaa hore loogu amray in aysan war ka qaadi karin Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in uusan ka bixi karin guri ku dhex yaala madaxtooyada Baydhabo. Xog ay heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaysa in gudoomiyaha loo sheegay in la fasixi doono marka uu xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, kaas oo Arbacadii loo doortay Ambassador Cali Saciid Faqi. Sababta xabsi guriga loogu dhigay ayaa lagu sheegay in uu dood ka qabo qaabka looga reebay ka mid noqoshada baarlamaanka labaad iyo in loo geystay handadaad lagana cabsi qabo inuu warbaahinta la hadlo. Cabdulqaadir Shariif Sheekhuuna Maye oo ah gudoomiyihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ahaa shakhsigii ugu saameynta badnaa ee dowladda Soomaaliya ka taageeray in meesha laga saaro madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo in la soo qabtay Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ahaa nin aad u saameyn badan, balse waxay u muuqataa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku abaal dhacday. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri ciidanka xoogga dalka ayaa ka fuliyay deegaanka Ceel Cali degmada Xudur ee gobolka Bokool howlgal ay ku dileen horjoogo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, kaas oo lagu magacaabi jiray Aflow. Qoraalka ayaa intaasi ku daray, horjoogahaasi ayaa ahaa horjoogihii howlgallada argagixisada u qaabilsanaa gobolka Bokool. Taliyaha guutada sagaalaad ee qaybta 6aad ee xoogga dalka Gaashaanle Mukhtaar Maxamed Cabdullaahi Geesi ayaa sheegay in howlgalku uu yimid kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay afduubteen mooto nooca xamuulka ah iyo wadihii waday, taasoo dad shacab ah ay ku shaqaysan jireen. Geesi ayaa tilmaamay mootadii ay dhaceen, wadihii iyo 3 qof kale oo ay afduub ahaan u haysteen, iyo qorigii horjoogaha oo noociisu uu ahaa AK-47 iyo rasaas badan inay ka soo furteen, kuwaas oo haatan gacanta ugu jira ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed siduu hadalka u dhigay. Ciidamada xoogga dalka ayaa dhawaanahan kordhiyay beegsiga saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab. Dhawaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in nolosha lagu qabtay madaxii sirdoonka Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose Xasan Suule Xasan Geni kadib howlgal ka dhacay duleedka deegaanka Janaale. Dhanka kale, tirada uu soo ritay cudurka corona ayaa iminka gaartay guud ahaan caalamka oo dhan 1 milyan oo qofood, sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay oo ay samaysay jaamacadda John Hopkins. In ka badan 53,000 oo qof ayaa cudurkani u dhimatay, halka 210,000 oo qofoodna ay ka caafimaadeen, sida ku xusan warbixinta tirakoobka jaamacadda. Mareykanka ayaa hogaaminaya tirada guud ee dadku ku dhacay xanuunkan. Dhimashadan waxa ay dalkaasi gaartay ku dhawaad 6,000 oo qofood. Dalka Spain ayaa shalay oo kaliya waxaa cudurkani ugu geeriyooday 950 qofood. Dalka Hindiya, ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa muuqaal u baahiyay waxa uu muwaadiniinta dalkaasi ku booriyay in xanuunkani si wada jir ah loola dagaalamo. Hindiya ilaa iminka waxaa laga xaqiijiyay 2,000 oo qofood inuu ku dhacay cudurkaasi, halka 53 qofna cudurkaasi u dhinteen. Shiinaha waxaa aad hoos ugu dhacday tirada dhimashada iyo kiisaska cusub, waxaana dalkaasi waa meeshii ugu horeysay oo uu ka soo ifbaxay xanuunkan muddo haatan laga joogo 3 bilood, waxaana loogu dhawaaqay maalin fasax oo loo barordiiqaya dadkii ku dhintay cudurkaasi. Dhimashada cudurka ee guud ahaan caalamka ayaa sii kordhaysa, waxaa cudurkan ilaa hadda guud ahaan caalamka ugu dhintay 53,000 oo qofood. Guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sirro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.